bandhiga waxaan leeyahay barako wanaagsan. dabcaantii aad bay ii farxad gelinaysaa inaan marti ku ahaado barnaamijka bandhiga ee Universal TV. waayahay anagana aad ugu faraxsannahay in dhallinyaradeena wax baratay in ay nagala qayb qaadato barnaamijyada telefishinka ka baxa. ka waran isbedelada dhanka ardayda goobaha waxbarashada haddii aan lahayd sida waqtigan ay ugu dhex muuqdaan ragga iyo dumarka intaba gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir. timacdow aad baa u mahadsan tahay. dabcan qadiyadda ku saabsan ardayda waxbarata iyo saameynta ay ku yeelan karaan ka qaybgalka siyaasadda waa arrin aad u muhiim ah oo mudan in marar badan laga hadlo. dabcan marka laga hadlaayo ummadda Soomaaliyeed waxaa la sheegaa in 70% in ka badan ay tahay dhalinyaro, taas oo macnaheedu yahay in wadankan uu leeyahay wax la yiraahdo productive factor oo aad u muhiim ah oo kaasoo ka anfacaya dalka dhinacyo fara badan haddii ay ahaa lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dhammaan qayb kasta oo wadankan horumarkiisa kaalin ku leh. marka waxaa muuqataa marar badanna muuqatay in faktorkan aadku muhiimka ah aan aad looga faa'iideysan, taas oo ah in dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda la siiyo. siyaasadda marka laga hadlaayo macnaheedu waxa weeyaan hagitaan bulsho oo lagu hago dariiqa saxda. dabcan waxyaabo badan oo challenges ah ayaa hortaagan in dhalinyarada ay qayb ka noqdaan waxa la yiraahdo hogaamiyaasha wadanka ama dadka talada ku leh wadanka. waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid ah culture-ka bulshada. bulshadeenu attitude-ka ku aadan dhalinyarada maxay ka aaminsan tahay in la isweydiiyo ayaa aad u muhiim ah. dabcan attitude-ka marka la fiiriyo bulshadeenu qof dhalinyaro ah haddii la yiraahdo taluu qabanaya ama taluu soo jeedinaya ama go'aan buu ku yeelanaya qayb maxay bulshadu dareen nooca ay ka qabtaa ayaa muhiim ah in la isweydiiyo. bulshadana Soomaaliyeed waxay leedahay oraah caan oo ah qof 20 jir inta uu laan ka buuda ayuu tala ka buuda, taas oo ku tusinaysa in qofka dhalinyarada in somehow meelaha talooyinka laga gaarayo aan uusan aad uga dhex muuqan karin. culayska aadka u muhiimka ee bulshada haysto waliba dhalinyaradeena Soomaaliyeed kaas ayaa ugu muhiimsan. waxaa kale jiro timacdow in dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood aysan ahayn dad si aad u fikira. tusaale inta wax barata qofka dhalinyarada waxa uu ku fikirayaa markii uu wax barto in uu helo shaqo uu ku maareeyo qoyskiisa iyo naftiisa, laakiin aad bay u yartahay dhalinyarada Soomaaliyeed ku wax barta waliba marka ay qalin jabayaan in ay ku fikiraan in dalka ay wax u qabtaan. marka laga hadlaayo siyaasad dawlad waliba dalkeena waxa waaye in bulshada aad u fahamto siyaasaddu waa wadankaada sidii wax ugu qaban lahayd. marka bulshada dhalinyarada waxa la gudboon inay aaminaan in kaalin muhiim ay ka qaadan karaan doorka nabadeynta dalkeena Soomaaliyeed waliba ku wax barta. fursadaha hadda muuqda aad bay u fiican yihiin marka loo eego xilliyadii hore. dabcan waxaa dalka ka talida xukuumadda nabad iyo nolol oo dabcan kaalin muhiima siisa dhalinyarada Soomaaliyeed sida muuqata. waxay ka mid noqdeen golaha wasiirada, sidoo kale dhalinyarada waxay ka mid noqdeen maxaa la yiraahdo maamulka gobolka, taas oo diilo fiican gelida dhalinyaradu in ay boorka inta iska jafaan ay aaminaan in wadanka ay yihiin dadka hogaamin lahaa, dadka uu wadanka u baahnaa. dabcan dhalinyarada waxay leeyihiin wax loo energy ama tamar. waxaa dhacda mararka qaar in dhalinyarada looga faa'iideysto tamartooda midda physicalka ama xoogga, laakiin badanaa ma dhacdo in midda maskaxda aad looga faa'iideysto. qofka soo koraya maskaxdiisu aad bay u shaqeynaysaa. waxaa la sheegaa caqliga marka loo in dadka kale uu aad uga fiican yahay, khibradda walow ay tahay waxyaabo kale oo aad u saameynayo. waaya ka waran waqtigan marka la eego dhanka waxbarashada oo kale sidee dhalinyaradu wax u bartaan gobolka ku nool? waxbarashada sanadihii aad u dambeeyay aad bay u soo xoogeysanaysay. dhalinyaro fara badan ayaa ka qalin jibiyay maalin kasta jaamacadaha dalka, iskuulaadka. waxaa kaloo jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagana wax ku soo barta dalalka dibadda. dabcan challengeska caqabadaha dhanka waxbarashada dhalinyarada ka haysta waxaa ka mid ah in waxbarashada aysan ku jirin waxa loo civics-ka ama maadooyin ka hadla wadaniyadda, in qofka dhalinyarada la baro waxa la yiraahdo wadanka inuu asaga leeyahay cid ka xigta aysan jirin. dabcan sanadihii aad u dambeeyay aad baa qorshahaasi u soo hagaagay oo manaahijta qaar waxa lagu daray waxa la yiraahdo civics-ka oo aad aan ugu ammaanayno dawladda Soomaaliyeed. qofka dhalinyarada Soomaaliyeed inuu
ogaado in waddankan qof uga muhiimsan aysan jirin. Dhalinyarada wax barataa mar kasta waxaan ku dhiirinaa dadka inay aad uga faa'iidaystaan waddamada hormaray. Dadka dhalinyarada ah aad baa looga faa'iidaystaa, weliba kuwa wax bartay dhanka siyaasadda hadday noqoto, dhinaca socialka bulshada iyo dhinaca kale siyaasaddaba. Marka dhallinyaradeenna waqtigan waxaa la quman in qudhoodu aysan rajo dhigin. Rajadu way muuqataa. waaya maadaama ay ka mid tahay guddigan dhalinyaradan waxbaratay ee u ololeynayso doorka waxbarashada ee dalka, waxaa laga yaabaa mararka qaar inay dhacdo duruufo dadka qaar ee u diida in goobaha waxbarashada ay tagaan oo kale. ma jirtaa wacyigelino ku saabsan in dadkaas sida wax loogu qaban lahaa iyagu idinku oo dhalinyaradii qaranka ee waxbartayte ma sameysaan fursado noocaas inay abuurtaan dadku u wacyigelisaan in dadkan aadi karin goobaha waxbarashada in awoodooda aysan dhameen gacan la siiyo? Timcad aad baa u mahadsan tahay. Midowga Ardayda Qaranka Soomaaliyeed muddo 2 sano ku dhow ayuu aasaasan yahay. Dabcan howlo muhiima ayuu u qabtay ardayda Soomaaliyeed. waxyaabaha muhiimka u qabtay waxaa ka mid ah in isku xiro ardayda Soomaaliyeed guud ahaan gobolada dalka ay joogaan oo u sameeyo madal ay ku wada xiriiri karaan. sidoo kale waxaa ka mid ah in uu qabtay barnaamijyo lagu dhiirigelinayo dadka waxbartay, weliba annaga diiradda saareyna dhanka waddan jacaylka iyo ardayda in lagu dhiirigeliyo dowladnimada inay qayb ka noqdaan. Midowga Ardayda Soomaaliyeed waxyaabaha uu qabtay sidoo kale waxaa ka mid ah in uu isku xiray ardayda iyo dowladda. Tusaale midowga waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ah in uu ka qayb qaato barnaamijyada ka socda haddii ahaleed kuwa ay qabtaan xukuumadaha iyo kuwa baarlamaanka. waxaa ka mid ah wallaha isxilqaam oo door aad u fiican aan ka ciyaarno Midowga Ardayda Soomaaliyeed, anagu matalayna ardayda Soomaaliyeed inaan isku xirno ardayda oo ay ka qayb qaataan barnaamijkaas. waxaa aan gaarnay ilaa heer ardayda ay talo ku yeeshaan shuruucda ay diyaarinayaan baarlamaanka Soomaaliya. waxaa ugu dambeeyay shuruucda guddiga difaaca. dabcan dadka aragtida fiican ku lahaa oo si fiican uga qayb qaatay waxay ahaayeen Midowga Ardayda Soomaaliyeed, arday matalaysay. marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo badan oo aad u muhiim u ah ardayda ayaan qabanaa. waaya maxaa kuu muuqanaya marka oo isbeddel ah hadda? ifaalaha aad buu u fiican yahay Maxamuud Iskariyow. ardayda Soomaaliyeed wacyigooda waa uu isbedelay oo dabcan waqtigan waxaad arkaysaa arday Soomaaliyeed oo doorka ay ku leeyihiin horumarinta dalka ay kuu muuqanayso guud ahaan dalka iyo dibadda. talooyin fara badan ayaan mar kasta soo jeedinaa. ardayda siyaasadda marka la dhaho waxaan dhahnaa weliba dhalinyarada waa markaadi waay. waddankan waxaa soo maray qeybo kala duwan. sidoo kale waxaa soo tali jiray odayaal. markan waa xilligii dhalinyarada. waxaan ku dhiirigelin in ardaydu ay inta isxilqaamaan iyo weliba dhalinyaradu ay bannaanka u soo baxaan oo fikirkooda ku aadan hogaaminta dalka iyo sida ay wax u socdaan ay ku biiriyaan madaxda markaasi maamulka haysto. xaaladaha siyaasadda ee waddanka kusoo kordha inay talo ku yeeshaan. tusaale waxaad arkaysaa ururo kala duwan ama siyaasiyiin oo markasta iishuuga yimaado aragtidooda ka dhiibto. hamiga aan hiigsanayna waxaa waaye dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku xiran oo madal leh oo xaaladaha guud ee waddanka ka warqaba, talooyinkooda la dhageysto. waaya dhalinyaradu waqtigan waxay ka qaadanayaan doorka ugu muhiimsan haddii aan lahayd isdhexgalka bulshada iyo wacyigelinta dowladnimada. sanado ka hor sidan way sii yareed in dhalinyaradu ay ka dhex muuqdaan goobaha siyaasadda iyo waxbarashada. hadda waa sidaa sheegtay aaday ugu dhex muuqdaan iyaga oo tala iyo tusaalooyin wanaagsan ay muujinayaan, laakiin weli waxay aaminsan yihiin in la dhaha dhalinyaradu waxay tahay madaxdii maalinta ama madaxdii beri. marka sidee fikirka noocaas loogu fujin karaa marba haddii aaminsan yihiin iyagu? dabcan fikirkaas wuu jiraa in mar kasta la yidhaahdo dhalinyaradu waa madaxdii berita, laakiin ma ahan madaxdii berita manihin ee waxaan nahay madaxdii maanta ayaan nahay oo doorkeenu aad baa loogu baahan yahay dhinac haddii ay noqoto jaangoonta siyaasadda, ka warqabka bulshada inteeda kale. dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo arrimahaasi u noqon doono barbilow oo waqtigan ay dhalinyaradu aad u sameeyaan. haddii ay hal lahayd dhanka bulshada oo aad yacni wacyigelinta bulshada oo kale dhalinyaradu door muhiim ayay ka qaataan. mar kastana waa muhiim in dhalinyaradu ay dabcan nidaamka socda ay qayb ka noqdaan. la-aantooda ma soconayso hawsha. haddii ay haleed dhanka maamulka iyo dhanka tuuliska dhaqaajin lahaa waaye hawsha markaa socota haddii ay haleed midda dowladda iyo howl kasta oo bulshada. waay aada umahadsan tahay. gabagabadii
maxaa ugu baaqileed marka dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumarba in waxbarashadooda iyo siyaasaduba ay saameyn fiican ku yeeshaan qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa waxbartay iyo kuwa kale aan waxba baranba inay aaminaan in wadanku ay iyagu leeyihiin oo cid ka xigta aanay jirin in talada ay wax ku yeeshaan wadanka oo ay banaanka u soo baxaan in aysan ka rajo dhigin wadanka horsocodkiisa inay ku biiriyaan afkaartii keeni lahayd in wadanka uu hore u dhaqaaqo in ay yeeshaan qab ah in wadanka u baahan yahay ayaga in ay boorka inta iska jafaan oo ay ismuujiyaan ayaan sidoo kale ugu baaqi lahaa marka qodobkii ugu dambeeya waa kaas aad u mahadsan yahay Shariif Xuseen Ciise ayuu ahaa oo ka mid ah midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee ka dhisan gobolka Banaadir waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga halkan waa telefishinka Universal Studio oo ku leeyahay magaalada Muqdisho markan waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka balse marka hore aan wax yar ku yaranasan qadarada adeega bulshada soo gudbinta barnaamijka bandhiga telefishinka Universal waxa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا waxaan doonaynaa insha Allah taala xaafadan Yaaqshiid